doob jacayl la gaamuray oo hal habeen la aqalgalay 3 gabdhood oo walaalo mataana ah. waa la jeclow koongaan sheexaariya. mataanahani siday dhaaxa u soo wada jireen si la mid ah ayay jacaylkana u wadaagaan. ma kala masayraan mana ku murmaan gacaliyahooda agtiisa. tan iyo yaraantoodii bay ku taamayeen inay wada guursadaan wiil nolosha ku afareeya. halkii ay kala guursan lahaayeen 3 nin oo kala geeya ama midba mid meel gaara la dego. muuqaal ahaan waa isku egyihiin, mana jirto cid kala saari karta oon waalidkood ka ahayn. waana sababta uu gacaliyahoodu u aqoonsan waayey midda uu jecel yahay 3 gabdhood. isku ekaanshahooda waxa ay ku sheegeen inuu calaamad u yahay jacaylka waalidkood ay ku soo barbaariyeen. lamaanayaashan masiixiyiinta oo arooskoodu ka dhacay magaalada Kareena ee dalka Kongo ayaa sheekadoodu ku baahday warbaahinta bulshada caalamka. waxaana maqaallo iyo faallooyin ka qoray wargeysyada dunida ugu afka dheer. tiyo dadka qaar ay la yaab ku noqotay sidii 3 gabdhood oo walaala ah ay hal nin u wadaagi karaan. mase aha wax naadira markaad joogto galbeedka Afrika. maxaa yeelay dalka Nigeria nin lagu magacaabo Maxamed Alfa ayaa guursaday 2 gabdhood oo mataano ah oo la yiraahdo Aadama iyo Caasha Malama. ninkanoo lagu magacaabo Luwisu waa 32 jir. wuxuu aaladda Facebook ka bartay gabar lagu magacaabo Natalia oo deganeyd koonfurta Kivu ee dalka Kongo. shukaansi daba dheeraaday iyo waayo jacayl xad dhaaf ah xubnaha jirkooda saaqay dabadeed. lamaanaha ayaa kulmay markoodii ugu horeysay. waxaana gabadha uu jecel yahay ay bartay 2 gabdhood ee walaalaheeda kuwaasoo aad ugu ekaa iyada maadaama ay mataana ahaayeen. maalinka Luwisu jahwareer ayaa u bilowday. waxaana uu kala garan waayay gabadha uu jecel yahay iyo gabdhaha kale. kaliya iskuma eka waxay ka siman yihiin dabeecadaha iyo soo jiidashada dabiiciga ah. isku ekaanshahoodu wuxuu u fududeeyay in midba mar ay la kulanto iyadoo iska dhigaysa midii uu jeclaa. Natalia, Nadiji iyo Natasha tii u timaadaba waa u tii kale isaga. Luwisu waxa uu qabanqaabiyey munaasabadda guurka Natalia, laakiin intii diyaargarowgu socday mataanu waxay qorsheeyeen in 3doodaba uu hal mar wada guursado Luwisu, taasoo fajac iyo la yaab ku noqotay wiilkii guurdoonka ahaa. Luwisu ugu dambeyn waxa uu aqbalay guurka afargeesoodka ee gabdhaha mataanaha. wuxuuna yiri, muddo kadib waxa aan ku laabtay gurigeeda si aan u soo gabagabeeyo qorshihii arooskeena. si lama filaana ayaan ula kulmay 3 gabdhood oo hal waji leh ama aad isugu eg. dhab ahaantii aad ayaan ula yaabay. waxaana ku dhawaaday inaan suuxo sababtoo ah waxaan dareemayay sidii inaan riyoonayo oo kale. aan weydiiyey dhammaantood qofka Natalia. waxay si joogto ah ii yiraahdeen weligaa hal gabar ma aadan shukaansan jirin. markii ugu horeysay waxaad la kulantay Nadiji, markii labaad waxaad la kulantay Natasha, haddana waxa kula hadlaysa Natalia. waxay si joogto ah ii yiraahdeen weligaa hal gabar ma aadan shukaansan jirin. markii ugu horeysay waxaad la kulantay Nadija. waxa uu sheegay inuusan diidi karin codsigooda markii ay dhammaantood u soo bandhigeen jacaylkooda. weliba ay diyaar u noqdeen inuu hal aroos u wada dhigo. isagoo la hadlayay TV-ga Afrimax waxa uu yiri, jacaylka ay qabaan ayaa igu kalifay inaan wada guursado dhammaantood sababtoo ah 3doodu waa mataano. ma ahayn go'aan sahlan sababtoo ah ilaa hadda waalidkay ma aysan fahmin waxa aan samaynayo. wuxuu intaasii raaciyay, qoyskaygu kama aysan soo qayb gelin arooskeena. aabi aad ayuu uga carooday inaan 3 la noqdo. Luwisu iyo 3diisa xaas ayaa aroos dhaqameed farxadi ku dheehan tahay. waxaa loogu dhigay magaalada Kareena oo ku taal koonfurta Kivu ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Kongo. xafladda arooskooda kadib Natasha oo la hadashay telefishin maxalli ah ayaa sheegtay in arooskoodu ahaa mid cajiib ah. waxayna tiri, 3deena gabdhood waxaan leenahay hal qalbi, dhammaanteen waa isdareemi karnaa. kaasna waxa ku qoran gacalyaheena Luwisu. dadku waxay yiraahdaan mataanu ma kala maarmaan ilaa guurkooda, balse annagu nolosheena inta ka hartay ma kala maarano. waxa aan rajaynaynaa inaan farxad ku wada noolaano annaga iyo gacalyaheena.